waxaan ka dhaqaaqaynaa xaafadeyda aniga iyo kaamirmaan sahal sucaado cabdi cali oo deeq iiga wado oo gabaru ka xanuunsan tahay ayaan u ducaynayaa fartay suulka allah uga qaado jirada haysa hooyo sucaad cabdi cali waxay kaga duwan tahay hooyooyinka Yurub ku nool ay ayuutada 50,000 dollar ku xisaabtamaya mar walba oo aan khayr soo bandhigno kaalinta koowaad bay ku jirtaa waxaa ii dhiman walaalahay aan ka codsanayaa ijaarkii guriga bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waxaan rabaa inaan asxaabteyda u sheego waxaan ka dhaqaaqaynaa xaafadeyda aniga iyo kaamirmaan sahal waxaan rabnaa inaan ammaano gudano ammaanadaas oo sabab aad u aheedeen oo ah khayraadka iyo baahida dadka naga midka ee qaraabada ee muslimiinta ee aan soo bandhigno ammaano nooga timiday maama sucaad cabdi cali oo ah deeq raashin ah ayaan rabnaa inaan gaarsiino buulaxaasid ulajeedku wuxuu yahay dadka aan soo bandhigno ciidda caawiso waa dadka pageka facebooka ku xiran oo aan ka hakran leega iyo sheerka waana waajib diiniya ummadda danyarta ee waayeelada agoomanka dadka deemaysan kuwa xanuunsan inaan caawino maxaa yeelay ruuxa muslimka oo kurbada laga qaado waxay ka mid tahay adduunkana allahu rabbulcaalamiin baa wuxuu nooga badbaadinayaa bushiga iyo baahida iyo qaraxyada iyo dulmiga allahu rabbulcaalamiin baa na garab marinaya maalinka qiyaamana allahu rabbulcaalamiin jaxiimuu naga durjinaya jannaatu naciim buu na geynayaa nabigu sal alayhi wasallam wuxuu leeyahay man sarahu an yunjiyahu allahu min kurabi yowmi alqiyaamati falyunafis can mucsirin ow yadac canhu man sarahu ruuxa ay farxad gelinayso an yunjiyahu allahu alla inuu ka badbaadiyo min kurabi yowmi alqiyaamati kurbooyinka qiyaamaha falyunafis ha feydo can mucsirin mid u baahan gacanqabad wuu deymaysan yahay waa maxbuus wuu xanuunsan yahay waa baahan yahay hoos u ega ow yadac canhu amba ha ka dejiyo insha allahu tacaala waxaan codsani barnaamijyada ku salaysan ammaanada markaan gudanayno amba aan qof baahan soo bandhigayno amba aan agoon amba qof xanuunsan soo bandhigayno inay ka dugnaadaan daawashada iyo sheergaraynta barnaamijyada kale qaybtaada qaado insha allahu tacaala dhammaanteen allahu rabbulcaalamiin baa wax ka wada rabnaa cimri dheer oo caafimaad leh oo cibaado suuban laan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaa mar labaad maanta ku sugannahay aniga iyo kaamirmaankii xaafadda buulaxaasid waxaan deeq raashin ah ka wadnaa hooyo ama maamo sucaad cabdi cali oo laba faamil codsiyadii aan horu u gudbiyey ugu deeqday raashin faamilka koowaad oo ah alwaalid ayaan waxaan soo gaarsiinay raashin dhammaystiran oo waxyaabaha guryaha la dhigto bishu markay dhammaato ayaan u keennay maama sucaad waxaan allahu rabbulcaalamiin u weydiinaynaa ballanqaadkii allahu rabbulcaalamiin oo ah ruuxa wax bixiya in allahu rabbulcaalamiin uu siiyo bedel ka khayr badan maadaama nebigu sal alayhi wasallam uu caddeeyey allahu rabbulcaalamiinna xadiisulqudsi uu ku leeyahay qaala allahu tacaala unfiq calayk bixi ha lagu siiye marka ulejeedku wuxuu yahay dadka danyartaa ee baahida gaarka qaba dadka waayeelada ee gaboobay kuwa carruurtooda maanta la dhex jiifo bushi ay awoodi waayey inay shaqaystaan ay dhaqaaqaan intayna caafimaadka qabto oo allahu rabbulcaalamiin oo wax siiyey waxaa waajib nagu ah inaan kuwa hoos u eegno nasriga iyo guusha iyo horumarka iyo deeqdan allahu rabbulcaalamiin ka rabnana ayakow ilaahay hoos dhigay qofka maanta rabo in ilaahay shirkadiisa barakeeyo
xoolahoo haysta alla u siyaadiyo sharta dhacaysa ay ugu horayso bushi iyo baahi iyo qarax iyo madax jibin ka baqaaya waxaan fariintan u dirayaa dadka muqdisho jooga ee ganacsatada siyaasiyiinta dadkaan dan yarta ee allahu rabbul caalamiin muslim ka dhigay oo muslimku markaad ka maqan tahay ducadiisuna ay tahay duco qaa'ib ah adigoo ka maqan oo kuu duceeyahay sida hooyo Sucaad Cabdi Cali oo kale sida nabigu sallallahu alayhi wasallam oo sugay oo adilada leh ilaahay baa ku aqbalay ku bishaarayso markii walaalka oo muslima amba hooyo Soomaaliyeed oo muslimada oo baahan oo ninkeedii weysay ay maanta laba xil kaligeed ku soo hartay xilkii aabihii caruurta ka dhalay caruurta ay dhashay aabahood ah iyo xilkii hooyanimo isku hayso ducadooda ilaahay baa ku aqbalaya waxay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu uri qofka muslimka haddii walaalkii asagoo ka maqan oo u duceeyo oo yiraahdo ilaahu hebel dadka iyo deeqa iyo caruurta iyo caafimaadka u siyaadi bushi iyo baahi garab mari ducada ilaahay baa aqbalaya marka waxaan codsanaynaa oo nabigu sallallahu alayhi wasallam leeyahay hal tunsaruuna wa turzaquuna illa biducafaa'ikum miyaani la gargaari oo miyaani la irzaaqi illa biducafaa'ikum kuwiina taagta daran oo aad hoos u egtaan oo aad gacan qabataan mooye maanta waan dharganahay waxbaan haysanaa dad baan guryahooda dab laga shidin hooyo Sucaad Cabdi Cali waxay kaga duwan tahay hooyooyinka Yurub ku nool ay ayuutada $50,000 ku xisaabtamaya mar walba oo aan khayr soo bandhigno kaalinta koowaad bay ku jirtaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo allaha barakeeye dugsi quraankii xamar jajab aan ka dhisnay kaalinkii labaad bay gashay $500 bay ugu deeqday maanta waxaan soo bandhignay alwaalid oo xanuunsan axad baan soo bandhignay maantana waa arbaco raashin dhammaystiran ayaan u keenay faamil labaad oo ku sugan Dharkeenley macalin nuurna waa u soconaa haddii alla doono oo wadooyinku ay noo saamaxaan maadaama jagboontiyadii la badiyey ciriiri badanna oo wadooyinka ka jiro marka waxaan codsani insha allahu tacaala 4 faamil oo 3 ay agoon tahay ayaan waxaan u rabaa raashin sidaan oo kale loo soo bandhigaya qaar waa agoomo qaarna waa agoon aabe iyo hooyo aan haysan labada isku jiraan insha allahu tacaala ulajeedka aan ka leenahay aan u soo bandhigaynana waxa weeyaan inay noo duceeyaan magaalada muqdisho oo riskigeedu badan yahay joognaa alcaaqil yafham ducadaasa rabnaa inaan barakaysano ilaahay masaa'ibta uu nooga badbaadiyo adduuni aakhiro waxsan nagu siiyo insha allahu tacaala ganacsatada gobolka banaadir cid kasta oo maanta taargad ah waxaan kuugu bishaaraynayaa qadiyadan haddaad ka qayb qaadato ducadaas baa ilaahay kugu meel mari doonaa waa lagu duceynayaa qaybtaada ka noqo 4 faamil ayaa raashin u rabaa alwaalid hal codsiya nooga haray 9 bilood ee ijaarkaana insha allahu tacaala 9 qofood baa ka bixi karto adduuni aakhiro waxsan allah ni siiyo acmaasha allah niga aqbalo inta damqata ee wax bixisa ay adoomada ilaahay gargaartana allah nagu badiyo waxaan ku sugannahay buule xaasid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Cali Axmed Macow ayaa isoo booqday mar labaad Sheekh Shantay Sucaado Cabdi Cali oo deeq iiga wado oo gabaru ka xanuunsan tahay ayaan u duceynayaa fartay suulka allah uga qaado jirada haysa caafimaad khayr qabtana allah siiyo dad deeq hodama na allah siiyo haddii alla ku roon yahay waa ii soo deeqday bedelkeedii wax khayr qaba allah siiyo insha allahu tacaala anukuna mahaanaan iska fadhinaa ilmo caruurahaan dhex fadhinaa iyo hooyadood wax qabsan ma karno inti noo gulmaysa kor allah ka dhigo kala dhinna allah kala yaabo wax dhiba ilaahay ma tuso waxay deeqay noo keeneenna bedelkoodii oo khayr qaba allah siiyo
waxaa lay keenay raashin dhammaystiran oo dheg iyo daba ka siman waxaa ii dhiman walaalahay aan ka codsanayaa ijaarkii guriga oo 9 bilood oo codsaday aa ii dhiman khayrna allah ugu bedelo